السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتنا كوحدان kanaalkeena isha ciyaaraha ku soo dhawaada muuqaal cusub oo ka tirsan taxanaheena Euro 2020 oo aynu ku faaqidi doono ciyaarta caawa 7 habeenimo ee geeska Afrika loo balansan yahay ee dhexmar doonta Hungary iyo xulka koobkan haysta ee Portugal xulka qaranka ee Portugiiska ayaa ku raad jooga ku guuleysiga koobkoodii labaad ee Euro ah oo xiriir ah xagaagan dhanka uu tababaro Fernando Santos ayaa caawa ololahooda ku furaya caasimadda dalka Hungary ee Budapest Portugal ayaa caawa ka go'an tahay guul si ay awood ugu bilowdaan koobkani oo ay groupka kula jiraan labada xul ee Jarmalka ee Faransiiska haddii aan ku horeyno dhanka caawa martida loo yahay ee Hungary isaga laftigiisu marka marxaladda la joogo ma aha mid la dhayalsan karo waxa ay koobkii la qabtay sanadkii 1964 ku dhameysteen kaalinta saddexaad halka 1972 ay ku dhameysteen kaalinta afraad wixii intaas ka dambeeyay uma aanay soo bixin koobkani ilaa laga soo gaarayay sanadkii 2016 koobkii ugu dambeeyay ee la qabtay 2016 waxa ay ku soo bixeen kaalinta koowaad ee group F iyagoona ka sarreeyay xulka ay caawa isla ciyaarayaan ee Portugiiska si kastaba xaalku ahaade waxa ay koobka kaga hadheen wareegga 16 markaas oo ay ka adkaadeen xulka Belgiumku xulkani ayaa koobka sanadkan ugu soo baxay kadib markii uu ciyaarihii Belofiska kaga adkaaday xulalka Bulgaariya iyo Iceland ciyaaryahankii u dhaliyay goolkii ay ugu soo baxeen koobkan ee Dominik Szoboszlai ayaa isagu tartankan dhaawac ku seegaya xulkan u garweynka uu yahay Marco Rossi ayaa 12 ciyaarood ee ugu dambeeyay ee tartamada dhan ciyaareen aan laga adkaan waxa kuwan ka mid ah laba guulood oo muhiim ah oo ay ka gaadheen xulalka San Marino iyo Andorra oo ka tirsanaa kulamada lagu soo baxay koobka adduunka ee 2022 u diyaargarowga xulkan ee xagaagan ayaa ah mid wanaagsan waxa ay guul ka gaadheen xulka Qubrus bilowgii bishan halka ay barbar la galeen xulka Ireland intani ka sokow marka loo eego groupka ay ku jiraan Hungary waxaan laga filayn xataa inay noqon doonaan kuwa saddexaad ee groupkooda dhanka kale Portugal ayaa ah haystayaasha koobkan oo ay ku guuleysteen 2016 markaas ay xulkii martida loo ahaa ee Faransiiska kaga adkaadeen hal gool oo waqtigii dheeraadka ahaa saxeexay ciyaaryahan Eder kulankan ayaa sidaynu hore u soo xusnayba aan ahayn mid muhiimadiisa la dhayalsan karo guul ay caawa gaadhaan ayaa xulka Portugiiska dhigi doonta boos wanaagsan ka hor labada kulan ee adag ay leeyihiin Jarmalka iyo Faransiiska kuwaasi oo la ciyaari doono 19 iyo 23 bishan waddankan ku yaala jasiirada weekaha ee Iberia ayaan koobkii 2016 hal kulanna guuleysan saddexdii ciyaarood ee marxaladda guruubyada iyagoona dhammaan barbara galay hase yeeshee ku soo baxay booska saddexaad soo bixidda booska saddexaad sidoo kalena sanadkan waa la ogol yahay haddii aynu halkaa yar eegno koobkan Euro waxa uu leeyahay sharci ah in gruub kasta ay ka soo baxaan labada ugu sarreeya sidaas waxay ku noqonayaan 12 waddan si loo helo 16 xul waxa la go'aamiyay in ay sidoo kale soo baxaan 4 xul ee ugu fiican ee kaalinta saddexaad gala aynu u soo noqono mawduuceeni xulka Seleção ayaa tartankani kula taariikh wanaagsan sanadii 1984 2000 iyo 2012 waxa uu gaaray semifinalka koobkan halka sanadii 1996 iyo 2008 uu gaaray wareegga rubع dhamaadka dhankan uu Santos macalinka u yahay ayaa ciyaartan soo galaya iyagoo aan dhinacooda dhulka la dhigin 6 kulan ee ugu dambeysay Hungary ayaa kulanka waayay khidmadaha weeraryahanka hibada leh ee RB Leipzig u ciyaara ee Szoboszlai sidoo kalena waxa dhaawac ku maqnaan doona ciyaaryahan Solt Kalmar Roland Salai ayaa dhawaanahan baysna ku maqnaa dhaawac aan aad u weynayn hase yeeshee 24 jirkan ayaa la filayaa inuu taam noqon doono kulanka caawa dhanka Portugiiska ciyaaryahanada kale ah Bernardo Silva iyo Diogo Jota ayaa la filayaa inay weerarka ku wehelin doonaan Cristiano Ronaldo halka Bruno Fernandes la filayo inuu booska tobnaad ku soo bilaabanayo khadka dhexe ee Portugal ayaa ah mid aad u cufan tan ayaana ka dhigan in ay adag tahay in la saadaaliyo labada nin ee ku wehelin doona Fernandes khadka dhexe inkastoo sidaasi ay tahay haddana waxa loo badinayaa in Santos ku soo bilaabayo Danilo iyo William Carvalho dhanka difaaca waxa la hubaa inuu ku soo bilaabanayo ciyaaryahanka ka soo baxay xil ciyaareedka fiican ee Ruben Dias oo uu wehelinayo Bebe dhanka difaaca bidix waxa la filayaa inuu ku soo bilaabanayo ciyaaryahanka 22 jirka ah ee Rafael Guerrero ugu dambeyn booska daafac midig ayaa la filayaa inuu ku soo bilaaban doono ciyaaryahan Nuno Mendes maadaama oo Joao Cancelo laga helay coronavirus asxaabta nagu xidhana muuqaalkan kooban ee aynu ku faaqideynay kulanka caawa loo balansan yahay ee dhexmari doona xulalka Hungary iyo Portugal intan ayuu ku egyahay fadlan haddii ku cajabiyay like saar sidoo kalena la wadaaga asxaabtaada
kanaalkan haddii aadan hore u saaran ha hilmaamin inaad subscribe gambalelka wada saartid waa anigoo idin leh waana idin muuqaalka kan xiga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu